العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaynu ku soo dhex jirnay fasalkii uu sheekhu kaga hadlayay fi niyyati xaala tacallum, niyada marka qofku uu wax baranayo. waxay noogu joogtay laba bayd oo uu soo qaatay ceebaynta la ceebeeyey qofka caalimka ee cilmigiisa aan ku camal falin iyo qofka caabidka ah ee cibaadaysanaya cilmi la'aan. waata culimmadu ay yidhaahdeen qofka caalimka ah ee cilmigiisa aan ku camal falin fa fiihi shabahun min alyahuud, wuxuu saaweeyaa nimanka yahuudda. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuudda wuxuu siiyey cilmi, laakiin cilmigoodii kumay camal falin. qofka iska cibaadaysta cilmi la'aanna fa fiihi shabahun min annasaara, isna wuxuu saaweeyaa kiristaanka. waayo kiristaanku iyagoon cilmi lahayn ayaa intay kaymaha galeen ayaa waxay yidhahdeen waxaanu u go-aynaa cibaado. sidaa daraaddeed ba qofka doonaya inuu dhammaystirmo labadaa awoodood inuu la yimaado ay laga maarmaanta: quwatu alcilmi wa quwatu alcamali bilcilmi. waa inuu naftiisa ku gadaamo oo uu ku gaashaamo labadaa tilmaamood: awood aqooneed iyo awood camalfal. markaasaa wuxuu noqonayaa qofkaasi qof hanuunsan oo haya waddadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, iyo waddadii ambiyadii isaga ka horraysay, iyo waddadii cid kasta oo suuban. alla subxaanahu wa tacaala fii suurati alfaatixa waxa uu ku sheegay dadka wanaagsan ducadoodu waxa weeyaan: ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin. hadh iyo habeen, goob kasta iyo goor kasta suuraddaasaynu ka akhriyayna: ilaahayou nagu hanuuni toobiyaha toosan. toobiyaha toosani waa kuwee? waa kee? waa waddadii ay qaadeen kuwii aada u nicmaysay, ancamta calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa, oo ah sidiiqiintii abubakaru sidiiq iyo raggii la midkaa, shuhadadii kuwii ilaahay diintiisa iyagoo u dagaalamaya la dilay, kuwii wanaagsanaa, ambiyadii waa kuwa waddadooda jidka toosan, gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin. ilaah waxaad naga badbaadisaa oo aadna waafajisaa inaannu ka baydhno jidka qoladii loo cadhooday iyo kuwii lumay. kuwaa loo cadhooday iyo kuwaa lumay rasuulkaa fasiray. wuxuu idhi: alyahuudu maqduubun calayhim waannasaara daalluun. kuwa lumay waa yahuudda, kuwa loo cadhooday waa yahuudda. waxaa loogu cadhooday cilmi bay lahaayeen, laakiin kumay camal falin. kuwa lumayna waa kiristaanka, iyaguna waxay ku lumeen cilmi la'aan bay iska camal faleen. wuxuu idhi sheekhu marka: fasaadun kabiirun, waynu fasirnaye fasaadun fasaad, fasaadkaasoo kabiirun weyn weeyaan, caalimun nin caalima oo mutahatikun waxba aan u aabba yeelay, waxba aan ka xabay, xumaantii iska shabkaxsanaya. wa akbaru waxaa ka weyn minhu caalimkaa aan cilmigiisa ku camal falayn waxaa ka weyn
fasaadan bay ka dhiganta xagga fasaadka waxa ka weyn jaahilun nin jaahila oo mutanassikun iska cibaadaysanaya sababtu uga dhib batayna waxa weeyaan banu ninkan caalimka waxa laga yaabaa inay isaga caqiidadiisu saxsan tahay laakiin waxa uu ku khaldan yahay ay tahay amal falkii oo uu ka tagay hase yeeshee qofka jaahilka ee isagu kaymaha iska jibaaxaya ee la anigu cibaadaan u go'ay waxa looga baqanaya xataa caqiidadiisu inay fasahaado oo gaalnimo uu aamino dabadeetana isaguna uu lumo dadkana uu salfado oo uu habaabiyo wa akbaru minhu jaahilun mutanassikun huma labadaas isma dhaamaane fitnatun fitna weeye fitnadaasoo fil caalamiina uunka dhexdiisa ahaata waa balaayo dadka ku habsatay fitnadaasoo cadiimun weyn fitnadaasoo liman ruux u sugnaatay ruux bay fitnaynayaan ay karkaarka weydaarinayaan yatamasaku qabsanaya bihimaa labadooda qabsanaya fii diinihi diintiisa u qabsanaya oo kii caalimka ahaana markuu camalkii ka tago ee cilmigiisii uu ku camal fali waayo ayaa wuxuu leeyahay qofkii aan isagu cilmiga lahayn sheekh hebelba waxaasuu sameeyaa dabeetana markaasuu ku lumaya kii iska cibaadaysanayeyna qofkii aan cilmiga lahayn markuu arko nin cibaado badan oo dee laakiin isaga laftiisa aan cilmi lahayn wuu ku sixir goosanayaayo wuu ku lugo-aya markaasaa wuxuu odhanaya hebelba waxaasuu sameeyey labadaasiba dadka ayay luminayaan waxaad garanaysaan saddexdii nin ee nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam saddexda nin waxay quurhsadeen camalkii iyo cibaadadii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam nebi maxamed oo dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay ayaa waxay yidhaahdeen sidaasuu u cibaadaysanaya had iyo habeen buu soo jeedaa ilaa gomodihii ay dildilaaceen ay qarqarxeen innaga oo cid wax inoo ballan qaaday aanay jirin sidaynu u nasanaa bay dhahay nebiga camalkiisii bay yaraysteen markaasaa midi waxa uu yidhi anigu weligii cibaadaan ku soo jeedayaayo dhinacaba dhulka ma dhigayo midina wuxuu yidhi anigu dumarka waan ka tegayaayo weligay waxba ma guursanayo midina wuxuu yidhi anigu weligay waan soomanaanayaayo waxba ma cunayo maalin walba waan soomay saddexdii nin baa rasuulka loo sheegay rasuulkaa u yeedhay wuxuu yidhi ma idinkaas sidaas idinka soo yeedhay haayo annagaan nidhi bay idhahay wuxuu ku yidhi wax ma idiin sheegaa wallaahi innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu anigaa ilaahay idinku aqoon badan idinkuna cabsi badan markaasaa rasuulku waxa uu yidhi usallii wa anaam wa asuumu wa ufdir wa atasawaju nnisaa faman ragiba can sunnatii falaysa minni wakhtina waan tukadaa wakhtina waan seexdaa maalin waan soomaa maalinna waan cunaa dumarkana waan guursadaa intaasi waa sunnadayda qofka sunnadayda nacaa beri buu iga yahay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu dayriyey markaa ka jooga buuri haddaba qofkoo iska qiirooda oo caadifadi ay qaaddo waxaa laga yaabaa in uu ku halaagsado ee waa inuu idhaahdo maxaa diinteenna ku sugan maxaa sunnadii nebi maxameda sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sheekhu wayanwiya bihi waa la nasbinayaa wayanwiya hadalkii hore aynu u soo sheegnay ayaa lagu cadfaya wayanbagii an yanwiya almutacallimu soo mahayn wayanwiye waxaa kaloo habboon inuu niyeeyo bihi ay bilcilmi cilmiga inuu qofku ku niyeeyo ashukra mahadnaq calaa nicmati alcaqli uu ka mahadnaqayo deeqda ilaahay ugu deeqay garaadkan wanaagsan wa sixati lbadani iyo mahadnaq uu ka mahadnaqayo deeqda ilaahay ugu deeqay jidh caafimaad qaba walaa yanwiya waa inaanu niyeynin bihi cilmiga aanu ku niyeynin iqbaala naasi ilayhi iqbaala naasi dadku inay soo qaabilaan ilayhi isaga ku soo qaabilaan cilmiga inuu magac ku helo oo dadka indhahooda uu buuxiyo oo dadku maaragta ay bartaan ujeeddadiisu waa inaan intahay wala istijlaaba xutaami dunya adduunyada burburkeeda
inuu ku soo jiitana waa inaanu cilmigiisa ku niyeyn cilmigiisa waa inaanu ku doonin adduunyo inuu ku soo jiito wala istijlaaba xudaami dunya adduunyada burburkeeda ku soo jiidashadeeda waa inaanu niyeynin oo cilmigiisa aanu arrintaa ku niyeynin walkaraamata cinda suldaani wa gayrihi walkaraamata waxay ka dhigantahay halkii hore baa lagu cadfayaa ma niyeynayo karaamo iyo maamuus cinda suldaani boqorka agtiisa lagu maamuuso wa gayri suldaani iyo boqorka cid aan ahayn agteeda lagu maamuuso cilmigiisa yaanu ku doonin magac iyo maamuus dadka madaxda uu kaga helo kuwa maalqabeenka uu kaga helo ila wixiisu horu inoogu soo sheegay wuxuu ku niyeynayaa inuu jahliga naftiisa ka kor yeelo walaalihiina jahliga ka kor yeelo niyada saxdi wata wa gayrihi haddaynu jirno waxaa lagu cadfaya cinda suldaani wa gayrihi wa gayrahu haddii la yidhaahdana oo la nasbiyo waxay ka dhigantahay waxa aynu soo sheegnay iyo gayrkiiba wuu niyeynayay ma niyeynayo tilmaamaha xun iyo gayrkoodba ma niyeynayo dadku inay soo qaabilaan adduunyo inuu ku soo jiito ku soo jillaabto magac iyo maamuus inuu kaga helo madaxda iyo maalqabeenka tilmaamaha xunxun iyo wagayrahu madkuurkaa lagu soo sheegay gayrkiiba ma niyeynayo qaala moxamed ibnu alxasan wuxuu yihi raximahu allahu tacaala moxamed ibnu alxasan ashaybaani horeynu usoo marnay tarjamadiisa wuxuu yihi low kaana naasu dadku hadday ahaan lahaayeen kulluhum dhammaantood low kaana naasu dadku hadday ahaan lahaayeen kulluhum dhammaantood cabiidii addoommadayda la actaqtuhum waan xorayn lahaa wa tabara'tu waxaan ka beri noqon lahaa can walaa'ihim walahoodana beri baan ka noqon lahaa hadalkan uu ka soo guuriyey moxamed ibnu alxasan ashaybaani macnihiisu wuxuu noqonayaa haddii dadka oo dhani ay addoomma ii noqon lahaayeen waan xorayn lahaa markaan xoreeyo kadibna waxaan ka beri noqon lahaa walahooda beri baan ka noqon lahaa wale maxaa la yidhahdaa wale waxaa la yidhaahdaa addoonka qofka xoreeyey nicmo weyn iyo gallad weyn buu ku leeyay amba nin ha xoreeyo addoonka amba gabadhi ha xorayse nicmo weyn ayaa qofkan xoreeyey addoonkan uu xoreeyey uu gala nicmadaa weyn darteed ayaa sharcigu wuxuu jideeyey addoonku markuu dhinto hadduu xoolo ka tago waa addoonkii la xoreeyey iminka waa xor laakiin addoon maaha markuu dhinto hadduu xoolo ka tago oo la waayo qaraabo dhaxasha waxaa dhaxlaya kii xoreeyey amba ha noqdo nin amba ha noqdo gabadh bil casabaanu ku dhaxlaya ilaan deeq weyn buu u galay noloshiisa qayb weyn buu ku lahaa haddii la waayo cid qaraabadiisoo dhaxasha kaa xoreeyey ee addoonka uu ahaan jiray ayaa dhaxlaya xataa gabadh haddii ay ahayd taa xoraysa iyadaa dhaxlaysa walaysat fi nisaa'i duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba markaa wuxuu leeyahy sheekhu haddii dadku addooma ay ahaan lahayn dhammaantood intaan wada xoreeyo ayaan odhan lahaa xataa markaad dhimataan haddaad maali ka tagtaan oo cid idin dhaxasho la waayo anigu welihiina beri baan ka ahayo idinma dhaxlayo waa xeel dheeraansho sheekhu uu ku xeel dheeraanayo sida uu uga fogaanayo dadka agtooda waxa yaalla oo dhan ee aanu u fiirinayn una tixgelinayn dan iyo daaradna uga lahayn dadku waxay gacanta ku hayaan marka iska daa waxaan weydiistee oo dadka aan ka doono oo aan ka dawarsadee wixii anigu xaqa aan u lahaa ayaan uga tanaasulaya aan uga cararaya u leeyahay lianna man wajada sheekha marka cileeyay wuxuu yidhi lianna man wajada qofka hela ladata alcilmi cilmiga macaankiisa iyo wal camala bihi ku camalfalka qofka hela qalla maa yargabu waxaa aad u yar bimacna alcadamna waa loo isticmaalaabe maba jirto waa loo isticmaali karaya
فيما عند الناس إنه حيسايو قال ما وحير يرغبوا إنه حيسايو فيما عند الناس dadka agtiisa waxa ku soo hadii cilmigaagani uu dhab yahay amal falkiina ilaahay ku waafajiyo inaad dadka wax ka daydaydo oo dadka aad dushooda ku meermeerto oo aad ku meehanowdo oo dadka waxa agtooda yaala ee muunad adduunyo aad u muhato wax dhacayma haddaad aragtanin madaxda isku dhadhajinaya amba dadka maalqabeenka isku dhadhajinaya waxa weeye qof cilmi la maaha oo buura dabeetana wuxuu ku bishlayaa hoosayntiisii iyo dhinaanshihiisii xagga cilmiga wuxuu ku bishlayaa ayuu ku buuxinayaa inuu kuwan kaaga dhawaado oo buuxi meelaha bannaan kuwanu isku dhadhajinaya marka maalqabeenka oo maaragtay la daba boodboodo iyo madaxda oo la daba boodboodo marka qofka noocaas qof dee ilaahay ka baqanayo oo cilmi ku dadaalaya ma aha sheekha ka soo reebi doona arrinta mas'ale anshadana wuxuu noo inshaaday buuli الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم ابن إسماعيل الصفار الأنساري أنشدنا وحو نوتري واطن صومرني قراءة الشعر ولا إنشاد ولي بنا حلو استعمال بني قبل عد كلا الله ده مركب دوش هذا الوتري يمكن تحصل الوتري ده تنوح على قيده haddii loo isticmaalayo gabay qofkani uu leeyahay linafsi gabay uu leeyahay inuu tiri anshadana wuxuu noo tiriyay ashaykhul imaamul ajal sheekhi imaamka ahaa ee weynaa al ustaad waa qofka xirfada fog u leh wax barista ruug cadaadiga inta badan la soo jiifay dadka inuu wax baro ayaa waxa la yiraahdaa ustaad qiwaamudiini حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنساري أنصار بها إملاء يرس ونو يرس كاسو لأبي حنيفة توصلنا به رحمه الله تعالى شعرا قوي أيو نو إنشاد قوي نو إنشاد قوي قاسمحوها من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبه لنيل فضل من العباد من طلب قفك طلباء العلم علمك للمعادي آخره درادير وطلبه فاز وحو كغوليسنيا بفضل وناج قاسو من الرشاد هنون حقي كاهذا يتوصنا فيا لخسران طالبه فيا قومي قلدي اعجبوا ليابا وتأملوا نكتة أو روحة وانظروا إيجا لخسران طالبيه علمك قوة ضلبية خساره ده لنيل فضل شرف إني جاران درادد بو ضلبية من العباد الضوامد حقه ده أي كجاران قوي معني سوحة ويا كلا فضل إلا كلا فضل أيوه قفك علمك وبرنا أيوه إلهي درادي وبرنيه هر إلهي هبين آخره وبرنيه هي قفك علمك برنيه وبرنيه ضدك عاد كجهش مجع وعمر كشيخ يري من طلب العلم للمعادي للآخرة علمك يوحو ضلبيه لتحصيل ثواب الآخرة آخرة أبا الجود كده إنه حصيله فاز بفضل من الرشاد qofkaas wuxuu ku guuleysanayaa sharaf iyo wanaag ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa uu ka helayo hanuun iyo toosnaan oo ku gaadhayo darajooyinka sare ee jannada qolada kale ee sheekhu uu dardaar wariyay fayaa li khusraani daalibihi meesha waxa xadfan munaadihi weyn soo qadarnay فيا قوم جارا مشروكا لخسران الدالبيه وحلقوا تعلقنا يا فعل حدفنا يسجنا يسوق ده اعجبوا الله يابا وتأملوا نكت وانظروا في ريا فعل كاسا لقوا تعلقنا كان لا يابين وايو
yaabkiisa la isugu habar wacanayo ee la isugu yeedhaya waa qofka cilmiga u dalbaya inuu ku helo adduunyo iyo magac dadka agtooda kaasi sida uu u khasaaray isu burburiyey isu baabi'iyey la yaaba waa ayaan darra buu leeyahay markaa nina waa nin guulaystay oo gobonnimo gaadhay waa kaa cilmiga hor ilaahay iyo habeen aakhiro u dalbay nina waa nin guul daraystay oo naftiisii gabagabeeyey waa kaa cilmiga u dalbaya magac iyo maal iyo manfac iyo mansib aad ku heshid salaam buu ka dhiganay man dalaba qofka dalba buu yidhi alcilma cilmiga lilmacaadi aakhiro daraaddeed u dalba makaanu noqoshadu waa aakhiro faaza wuxuu ku guulaysanayaa bifadlin sharaf sharaftaasoo kaa'inin min arashaadi ka ahaatay hanuun iyo hagaag fayaa likhusraani daalibi fayaa qowmi qoladaydiyey icjabuu la yaaba wa ta'ammaluu dhuuxa wanduruu fiiriya likhusraani daalibii alcilmi cilmiga kuwa dalbaya khasaarahooda maxay u dalbayaan linayli fadlin sharaf gaadhideed daraaddeed bay u dalbayaan sharaftaasoo min alcibaadi addoommada xaggooda ka ahaatay xagga addoommada inay dadku soo qaabilaan oo ay adduunyo siiyaan labadaa nin igiyay siman yihiin maye ma sina allaahumma ilaa idaa dalaba halkan wuxuu gelinayaa istithne qofku marmar ayaa wuxuu leeyahay sheekhu waxaa bannaan inuu u saciyo inuu cilmigiisa magac ku helo ujeeddo kalena kama ahee waxay ka tahay aad dadka wanaagga farti xumaantana ka reebti ujeeddadiisu waa intaa nin hadalkiisu uu socdo oo la dhagaysto aad noqoti arrintaasi laakiin waa arrin aad iyo aad u adag nin naftiisa meel saaray oo naftiisa ka adkaaday ayuunbaa arrintaas samayn karaya iyada lafteeduna wax aad u adag weyn allaahumma waa istidraag iyo istithne horaynu usoo marnay ilaa idaa dalaba inuu dalbo mooyaane aljaaha sharaf inuu dalbo u fiirsada lilamri si uu dadka u faro bilmacruufi wanaagga wanahyi ugana reebo cani ilmunkari xumaanta wa tanfiidi ilxaqi xaqa inuu fuliyo ayuu u dalbaya waiczaazi diini diintana uu quweeyo oo uu xoojiyo laa linafsihi naftiisa darteed uma dalbayo wa hawaahu iyo naftiisu siday jeceshahay allaahumma ilaa idaa dalaba inuu u dalbo aljaaha sharafta lilamri bilmacruufi dadka si uu u faro wanaagga wanahyi cani ilmunkari ugana reebo xumaanta wa tanfiidi ilxaqi xaqa u fuliyo waiczaazi diini diinta u quweeye mooyaane laa linafsihi naftiisana aanu u dalbin wa hawaahu iyo naftiisu siday jecesha laakiin yaa samayn kara de cid samayn karta way yar tahay taasu ka soo reeb fa yajuusu waxaa bannaan daalika arrinka inuu jaah dalbo dadka agtooda inuu jaah ku yeesho oo sharaf uu ku yeesho inuu dalbo muxuu dalbayaa lilamri bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar wa tanfiidi ilxaqi waiczaazi diin laa linafsihi wa hawaahu muxuu waaye sharafta iyo jaaha uu dalbaya ay tahay fayajuusu waxaa bannaan daalika inuu dalbo sharaf iyo jaah biqadri maa kii qadarkii inuu ka dalbo yuqiimu bihi uu ku oogayo alamra bilmacruuf farid dadka uu farayo wanaagga wanahyi cani ilmunkari iyo reebid dadka uu ka reebayo xumaanta tani waaba iska adagtayoo haddaad meelaha ka ag dhowaato dadka qabaa'isha shirarkooda iyo shirarka dadka madaxdii ay qabanayaan iyo marka dambe waxaad ku dambaynaysaa un oday dhaqameed amaba siyaasi daadka iyo duufaanka ayaa waxa weeyaan dhabannada kaa garaacaya dabeetana markaa calanbaqo kuu riday ilaan qofku waxan uu samaynayaa waa wax saamayn kaga tegay marka qofku ciddaa uu raaco ee uu ka ag dhowaado ayuunbuu la anshi noqonaya haddii aad iska dhaadhiciso siyaasiyiinta
oo isku dhadhajiso marka dambena siyaasi baad noqonaysa sheekhnimadii iyo waxaas waad ka haajiraysa waad ka tegaysa haddii qabaa'isha iyo waxa aad abaabushana marka dambena oday dhaqameed baad noqonaysaayo adigoo maaragtay bakoorad weysita koofiyadii masaftahaydna xidhan baa lagu arkay marka qofka ardayga cilmigiisa ayaa isaga ka badanay cilmigiisa yaanu qawadin yaanu quursanin dee hore wataynu soo marnay wayanbaqii lidulaabi ilcilmi culimadani goortan ay hadlayaan hadalkan ay noo sheegayaan iyo weliba waktigan inagu aynu taagan waqti aad u kala fog waktigan culimadu sidaa uga digayaan dadka madaxda in laga dhawaado waa waqtigii salafka ee madaxdu cilmi diineed ay lahaayeen ee cadaalad ay lahaayeen ee lagu soo dooranayay karti ammaano lagu soo dooranayay laakiin imika maxaa lagu dooranaya hayb iyo hunguri yaad isku reertiin baa lagu dooranaya ka dad ugu liita ee isagu maqalkiisa uu ka ilaashanayo ee dukaankiisa iyo daqiiqdiisa aanu ku aaminin ayuu dadka u dirayaa oo cumaamaday hunguri baa lagu dooranaya hadhow yaad la qayili kartaa yaa maaragtay hadhow aad wax ka heli kartaayoo inta yare dhanaaniska aad ka heli karta taasuu ku dooranaya marka dee tani waa mid iyadu aad u liidataba oo qof sharaf doonayo oo sheekhi wuxuu dhex galo oo uu hungureeyo maba ahaba nin ilaahay subxana wa tacaala khayr la damcayna meeshaa maba tagaba wayanbaqii lidulaabi ilcilmi waxaa u habboon qofka cilmiga dalbaya aba ardayda cilmiga dalbaysa an yatafakara fii daalika inuu arrinkaa ka fikiro arrinkii cilmi buu dalbay wuu doontay diihaal iyo daal iyo dayow iyo dawakh ayuu u sabray uu dhabarcaday hagardaabo iyo hadimaa u dhammaatay oon iyo haraad iyo gaajo ayaa cilmigaas uu ku helay oo uu ku xasiliyey haddana shilimo yar buu dhaafsaday ka war dhibaatadii ka soo gaadhay dhafoorradaa ku qiiqo dhabannadaa ku ololay oo dhib oo dhan baa u dhammaaday haddana shilimo yar oo dhururiya ayuu dhaafsaday magac yar buu dhaafsaday inuu nin madaxa ugu shaqeeyo ayuu dhaafsaday walam abtadil fii khidmati alcilmi muhjati liakhduma man laaqaytu laakin liukhdama sheekhii loodhan jiray jurjaani gabaygii aadka u murtida badnaa ee miiddu ay ka da'aysay muxuu ku yidhi walam abtadil ma dulaynin fii khidmati alcilmi cilmiga markaan u khidmaynayaan u adeegayay muhjati naftayda ma dulaynin liakhduma man laaqaytu laakin liukhdama inaan anigu u shaqeeyo kolba ciddaan la kulmo oo madaxda aan kabaqaad ugu noqdo amba maalqabeenka aan ku dawo boodboodo uma barnin cilmiga laakiin si aniga laygu shaqeeyo ashqaa bihi karsan wa ajnihi dillatan idan fatibaacu ljahli qad kaana axzaba cilmigii miyaan ku rafaadaya oon ku dulloobaya oo boodh iyo bacad iyo balaayo oo dhan aan u jafaya oon u jiidhaya markaasaa haddana aan goosanaya dullinimo miya inaan ugu shaqeeyo cid oo shilimaad yar aan kaga qaato dee markaa taa waxaa dhaanta jahliga iyo aqoon darrada ayaa dhaanta adigoo dee marka horeba iska shaqo taga ee cilmi aan ku soo dhuuman oo cilmiba aan dhiganine iska xamaasha oo magaaladaada leydhkala dhinaca ka gala taasaa dhaanta wayanbaqii waxaa habboon lidulaabilcilmi cilmiga kuwa dalbaya waxaa u habboon an yatafakara fii nafsihi meeshaa an yatafakaruu fii anfusihim baa dee markaa ama an yatafakaruu fii daalika ayay noqonaysaa aniga wuxuu u qorayaa lidulaabilcilmi haddana an yatafakara wax isqabanay maa yatafakaru waa in la yidhahdo haddii aan sidaa la odhanayna wayanbaqii lidaalibilcilmi waa in la yidhahdo ardayga cilmiga doonaya waxa u habboon an yatafakara inuu ka fikiro fii daalika arrinkaas isaga inuu ka fikiro arrinkaasi waa ka fii dalabilcilmi dalabulcilmigu waa inuu ka fikiro fa innahu isagu yatacallamu wuu baranayaa alcilma cilmiga bijahdin kaiirin wuxuu ku baranayaa dhib iyo rafaad badan haddii jiimka la kordhigo jahdi la yidhaahdo almashaqa wey
المشقة هدي لكن جهد لا يراه وجيم كله جدو لا معنى الله استعماله المشقة والله استعماله الوسع والضاقة أود إيه كران كعدله دين والله استعماله إما كمركها وح اللوتشي ده شهدي أي اللوتشي ده ورنبي يرفض فإنه يتعلم برني العلم علمي بشهد دب يرفض كثير بدن فلا يسرفه هذا ويان أقول حين إلى الدنيا دي الحقيرة اللي دتي القليلة يريد الفانية دمانيسي جبجبد هيدا جواب سجاهي يعني ويدار سنين علمي دب يرفض بخلقهم يسمع الدنيا يرهد ويان سيسن واتني وكسوشي أشقى به غرسا وأجنيه دلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ميان كرة فاضة يا علمي قمر كان برني يا أمبيري يشيني أواريني حضرت دوليني من ويدار سيدا وشي لما يرمان كوب الدشا يتاع أقوان درد عمي يدانتي أنا ومرك وروا علمي عن برن ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدأ مطمع سيرته لي السلمة مجدنين علمه حقه يقولها هذه مركز طو ميل الدنيا أي كبر عن توا أن جديجا كوجاعيو وأغيرك كفره ميل كستو وحلو شيء جوا هذه أديكوا علم له أدور عمامضات هل كان مهربا كتيرة هل كان كلو وليما كتيرة أد ميلها أصلا كل ما أردت لو هو أركون هو هالسوي وعلم جاي أضعف سطو إن يرى دونيا وأرين آدي وليدت وأنفعني وحول فإنه يتعلم العلم علم يجيب برني بجهد كثير نبي يرفض بدنا فلا يسرفه هدينا هي اللي قالوا هدي كلام فلا يسرفه وقبل التسمين إياه وما اللي حين إلى الدنيا دي الحقيرة ليدتي القليلة يري الفانية يرى مانيس هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أدل من الدليل تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل هي قصة وحيتها الدنيا أقل مد يرويا من القليل وحير مد كثير ويا قصة وحيتها وعاشقها الدنيا كتعلى الدل مد كدل لما بدويا من الدليل من جنس الدليل عد كستو الدلية سيا كدل لما بدو تصم ويدغتريسا بسحرها فلكيدا قوم الرجب يكون دغتريسا وتعمي وين دتريسا وسحر كيدا أيه ركون دتريسا فهم يجوا مركا دجالعان يندلعان مركا يسود رصدين متحيرون قوة ورسم وين بلا دليل وعد هجيسة وهنون نيسا أنيتل هي الضمير كاسي والضمير الشأن مذكر مركو كل عيو وهو وياه وحلا يدعى ضمير الشأن أمر حال وحاسير هذا هذو مؤنث كل عيو هي وياه ضمير القصة والحكاية وحاسوي قنا ضمير كاس ضمير الشأن أنا وحفسره وحكدم به مركا إمك هي ذا سوى حيون قنص الدنيا أقل من القليل قصة بوحة وين الدنيا ذو وحكة صوية هي ذا كثير أرنك هو أنت وعاشقها أدل من الدليل الدنيا ذا كتعلى قف كستو الدلية سيا كدل ما بدل وحويا غاية الدل وتمامه دلي وقلنا ما يسكتران وصر يا وحو هايستا ودل هوغانيا قف الدنيا ضلبي ودوني دينتي سين الدنيا كبدش الدنيا waxay dhaga tirtay wuli bisixriha sixirkeedii waxay ku dhaga tirtay yaani daldalaalkeedii sixir buu ku shabahay dalaalkii adduunyadu sidoo dadka u soo jiidanay waxa wad moodaa sixir daldalaalkeedii waxay ku sixirtay rag adduunyadaas bay daba ordayaano ay macaansadeen عن سماع الحق وقبوله أي كذا ترتك وأنا إذا ترتيو حقي ما أركيه كود دجلاء وير حقي ما مقليه كود دلاء وير حقي ما أركيه
natiijadu markaa maxay noqotay fahum mutaxayiruuna bilaa daliil way wareersan yihiin shinni boqorkii laga qabtay weli maaragta ama boqorkii laga jiray saasay isugu wareegaysa oo isugu ugaabaysa taladii ayaa faraheeda ka haaday way dawaqsan saasoo kale weey qofka adduunyada ka daba dhaca falaa yadri ayna yadhabu wa ayna yajiu fayataxayaru meel uu ka socdo iyo meel uu u socdo midna ma garanay hiya qisadu adduunyadu aqallu inay yar tahay min alqaliili wax kastoo yar inay ka sii yar tahay qisadu waaba taa wa caashiquhaa adduunyada ka jecela addallu isagaa ka dulinimo badan min addaliili min jinsi daliili mid kastoo dulya isagaa ka dulinimo badan tusimu way indhatiraysaa waa adduunyadii bisixrihaa falkeeda oo dhaldhalaalkeeda ah waxay ku indhatiraysaa qowman rag can samaacil xaqa inay maqlaan bay ka indhatiraysaa wa tucmi way indhatiraysaa tusimu waxay dhagatiraysaa dhe adduunyadii bisixrihaa dhaldhalaalkeeda waxay ku dhagatiraysaa qowman rag can samaacil xaqi bay ka dhagatiraysaa inay xaqa maqlaan wa tucmi way indhatiraysaa inay xaqa arkaan bay ka indhatiraysaa fahum iyagu mutaxayiruuna kuwa wararsan weeyaan bilaa daliilin daliil la'aanti haga la'aantii bay wararsan wayanbaqii waxaa habboon liahlilcilmi cilmiga dadkiisa waxa u habboon kutubta qaar waxaa ku qoran lidaalibilcilmi qofka cilmiga dalbaya waxa u habboon allaa yudilla inaanu dulaynin nafsahu naftiisa bidamaci inaanu ku dulaynin hunguri fii hayri madmacin meel la hungureeyo meel aan ahayn yaanu naftiisa intuu hungureeyo ku dulaynin wayataxaraza wuxuu ka fogaanayaa camaa shay kasta oo fiihi dhexdiisa ay ku sugnaatay madalatulcilmi wa ahlihi cilmiga dullayntiisa iyo cilmiga dadkiisoo la dullay wayakuuna wuxuu ahaanaya mutawaadican nin isdhuldhig qodobkaasaa jooga wuxuu yidhi waxa u habboon dadka cilmiga dalbaya allaa yudilla nafsahu waxaa ka fiican lidaalibilcilmi waayo allaa yudilla nafsahu waa mufrad inkastoo dee ahliguba xagga lafdiga uu mufradkii macnahana uu jamckii waxaa waajib ku ah qofka cilmiga leh amba ardayga cilmiga doonaya ee dalbaya inaanu hunguraynin meel la hungureeyo oo ma meel la hungureeya jirta haayo meesha cilmi aad ku ogtay aqoon kororsi aad ku ogtahay aad ku dulowdidbe halka waad hungureynaysa meel aqoon loo doonanayo iyada waa la hungureynaya meesha keliya la hungurayn karaa waa halka laakiin meel adduunya ay taallo in la hungureeyo ma habboon mana fiicno waa tii aynu ka soo hadlayno walam aqdi xaqa alcilmi in kuntu kullamaa badaa madmacun sayartuhu liya sullama xaqii cilmiga ma gudaynin haddii mar kasta oo adduunya ay ii bidhaanto oo hunguri uu ii muuqdaba cilmigaygii aan ka dhigto sallaan iyo buundo aan ku gaadhiyo hunguriga waa kaas qofku waa inuu arrinta noocaasa ka fogaado oo uu iska ilaaliyo wayanbaqii waxaa habboon buu yidhi lidaalibilcilmi qofka cilmiga dalbaya waxa u habboon allaa yudilla inaanu dulaynin nafsahu naftiisa inaanu dulaynin bidamaci hunguri inaanu ku dulaynin fii hayri madmacin meel la hungureeyo meel aan ahayn inuu hungureeyo yaanu naftiisa ku dulaynin cilmiga waa la hungureeyey oo waa ka xadiis rasuulku ku yidhi macnihiisu uu yahay manhumaani laa yashbacaan laba maman ma dhergaan daalibu cilmin wa daalibu dunya nin cilmi doonaya oo aqoon doonaya dee aqoon lagama dhergo lagamana qash dhaco mar wal oo cilmi kuu ziyaado waad sii xiisaynaysaa adduunyana lagama dhergo weli miyaad aragtay nin yidhi anigu intaan doonayo waan xisaabtamayo xisaab sannadeedkii markaan xidhay intaan doonayay bay gaadhayo waxaan ku dhawaaqayaa adduunyo dambe inaanan doonayn mar kasta qofkuu sii kordhinayo qofka adduunyo ka shaqaynaya
marnaba inuu adduunyadii ka fogaado oo uu yareeyo ma dhacayso wayataxaraza wuxuu ka fogaanayaa buuri sheekhu camaa fiihi camaa kiibuu ka fogaanayaa fiihi dhexdiisa ay ku sugnaatay madallatu lcilmi wa ahlihi cilmiga iyo dadkiisa oo la duleeyo waxa ay dhexdiisa ku sugantahay uu ka fogaanay cilmiga iyo dadkiisa oo la duleeyo oo talow maxaa ka mid ah cilmiga iyo dadkiisa oo la duleeyo waxaa ka mid ah dee waxa weeyaan taa aynu ka soo hadlaynayo cilmigaagii inaad adduunyo siisato cilmigaagii inaad adduunyo siisato oo aad adduunyo ku bedelato inaad maaragtay dadka madaxda waxyaabaha ay soo saarayaan aad maaragtay u sallaxdo ood qiil u raajiso adigoo shilimaad ka qaadanaya in waxa weeyaan dadka maalqabeenka aad qiil u raajiso soomaalida waxay tiraa qaalin bixiya qiil ma waayo wadaadadii hore qaar ka mid a may wada ahayn waataan hore idinku soo sheegay wadaadadii hore waxaa ku jira culimo wanaagsan diinta barashadeeda iyo baristeedu ay daacad ka tahay kuwaas iyagu diinta kumay shaqaysan jirin wax loo garta mooyaane dadkana may qasbi jirin kuwo kale oo iyagu aan culimo ahayn oo laga yaabo inay meelaha wax ka yara bowsadeen ayaa iyagu iscumaamaday oo isku caanashubay culamay markaa iska dhigeen oo shaarkii culimada inta xidhan ayay diintii ku qaraabsan jireen ay ku shaqaysan jireen taasaa wuxuu ku leeyahay qaalin bixiya qiil ma way mar haddaad qaalin keento xaaraan kasta waa lagu xalaalayn oo khatar weyn cilmiga dullayntiisa waxaa ka mid ah meel aanu ku habboonayn inaad dejiso oo meeshaanu ku habboonin u halkay ninka cilmi doonaya meelaha laga helo waa la yaqaanaa ha yimaado nin anigu magacla baan ahayoo waxaan doonaya inaad si gaara wax igu dhigto oo aad xafiiska igu timaado waa nin madaxa moogta ambaba guriga aad igu timaado wuxuu ka xishoonaya dadkii inuu soo dhex fadhiisto oo la yidhaahdo ninkii hebelee taajirka ahaa amba ninkii dee taytalka noocaasa lahaa ayaa dadkii dhex dhubtinaya intaasuu ka webinaya ka warwarsay walbahaar ba haya markaasaa wuxuu doonaya sheekhiyo safaariya inuu sariirta dusheeda cilmigii kaga qaato waxaas waxa weeye dullayn cilmigii la dulaynayo a'immaduna way ka digeen salafi alimaamu maalik alimaamu albukhaari gurigiisana loogu tegi maayo gaadhigiisana cilmigii loogu gaagaabin maayo xafiiskiisana loogu tegi maayo waxaa la leeyahay sheekhow ardayda soo dhex fadhiiso oo diintii ilaahay halkaasaa laga qaadanaya ka dhegaysaa la leeyahy marka dee imika waaba iska badanta in guryaha loogu tago dadka xoolaha haysta ee maalqabeenka amba carruurtooda laakiin alcilmu yu'taa ilayhi walaa ya'ti cilmiga waa loo tagaa isagu ma yimaado mahmaha carbeed fii beytihi yu'ta alxakam gurigiisaa loogu tagaa ninka garnaqaya haddaad xataa madax tahay oo cid kale aad wax isku qabsataan ninka idiin garnaqaya dee geedka uu fadhiyo ayaa loogu tegaya halkaasuu markaa ku garnaqaya xataa cumar ibnu khadaab ayaa mahmaadaa soo qaatay maray saxaabi kale wax isku qabsadeen waxaan filayaa zayd ibnu saabit inay isula tegeen dabadeetana zayd ibnu saabit oo ahaa dee nin faqiiho oo cilmi badan oo xaafidulqur'aan oo wuu yaabay cumar ibnu khadaab iyo ninkii kale isula yimi arrintaasaan isku haysanaa ina kala saar yaa amiira almu'miniin anigaaba kuu iman lahay maxaa ku soo dhigay waa madaxweynihii dhammaan muslimiinta wuxuu yidhi fii beytihi yu'ta alxakam gurigiisaa loogu tagaa ninka guurtida ee garnaqaya caalimka markaa cilmiga la doonaya in laga qaato dee lama safaari garaysanaye meeshuu fadhiyaa loogu tegaya oo loogu imanaya wuxuu yidhi wayakuuna waa inuu ahaado ardaygii mutawaadican mid isdhul dhiga waa inuu noqdo watawaaducu tawaaducu bayna atakaburi walmadallati wuxuu u dhaxeeyaa inuu qofku san taago oo uu isla weynaado iyo inuu isduleeyo waalcifatu dhowrsoonaantiina
كذلك سداسو kala weeyaan halka u fiirsada waxa haboon buu qofka cilmiga doonaya inaanu isu bogin isagu oo naftiisu aanay cajabin oo naftiisu aanay kadinin laakiin inuu isdhul dhigo qof degan oo dadka u tawaaducaya oo aan san taagin taawa inuu noqdo ويكون متواضعا تواضع ابن فسر وحوري تواضع بين التكبر والمذلة وحالة بحيثة تكبر إسلوينيدو وتلمان إلهي آدمي هي إنسان وما حبونا إسلوينيدو حديث القدس بواكيها العظمة إزاري والكبرياء ردائي حديث القدس إلهي كله وينيدو وحويا إزاري قنتي والكبرياء كبركنا ردائي وقعي حديث القدس إلهي سيدا كوري سبحانه وتعالى والله بطل المعمود إلهي كقارة كا تواضع لما يرحل كاو كوابسي وانو كوهصية وبين المدلة دولين تقف نفتيس ودولين هي حرام تاهيدنا تواضعو كسرية ويقف نفتيس الدولية حرام سمينتيد كدولية يقف نوع عسو تواضعا لما أرني marka tilmaanta la aqbalay tawaadu waxay ka hooseysaa isla weynida iyo santaag takabburka iyo kibirka oo tilmaan ilaahay waxaanay ka sareysaa qofku inuu isduleeyo meel walba uu ka maxaabsado taana way ka sareysaa marka qofku hadii uu daba cararo cid iyadu ka santaagaysa oo ka sii jeedsanaysa wuxuu ornay inuu aan tawaaducayaayo waan iska daba soconaya haduu doono qofkaasi albaabka waxa iga soo xidhay kaasi waa dulinimo tawaaduc ma waa ukrimu nafsi an udahika caabisan wa ana atalaqa bil madih mudammam naftayda waxaan ka maamuusaya inaan la qoslo nin wajiga kaduudayo waji tubay waa nin madaxa moogta xoolo yar baa laga doonayaayo isaguna warkani kuma socdo إلا إن دول صار لبويه وح لقى دوني وقرني مبدي ولا لقص لي أيوه وتشي قال الله فري أيوه يسوقنا وإن إنججنا وبندين مركا عبوان المال قبيرة ده وح هو يعني وح لقى دوني وقرني يسوقنا وبندو سلامتي ولا جاي أو إنه سكرات قاب يسوقه ده معركتي هذا الهوسين كقام قفك هذا الصدا أول رقمه ليس مد الليل لما ندوا بودي هذا يقولنا معركته ولا كبيرة كبيرة ده كبيرة سقفك إسكت كاس الرئيسية كاسات تواضع على شيء وخا كاسوا محي وتواضع مركا تواضع روح هي قف إنه سنتاجو أو يسوي إصلاح سرية إنه ملك يسجليو عد قرصنا يسا ودليليسا oo tunjireysanaysa oo kolba raajid oo maaragtay ka qosliyo oo raali geliyo labadaas u dhaxaya wal ifatu dawrsoonantuna kadalika sidaas oo kale weey marka waa hadii la rafciyo sidaas la ornay والعفة دورسونانتنا كذلك سيدا سوكلوين لأن خير الأمور أوسطها تواضع لم يتهيو بين التكبر والمذلة لبدا سيدنا ودحيسا ويعرف ولا قرني يقولي ذلك أنبه هذا واسكمدك في كتاب الأخلاق وحا لغا قرني كتاب الأخلاق كتاب الأخلاق يعني هروس الشيء أيها أرمها صدنا يكويا لو كتاب حنفية إليه أنشدني وحو يتري يقولي الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ركن الإسلام المعروف بالأديب المختار شعرا قوي يقول نفسي تصمنا وكان مركا إنشاد كيو لون نسبين يو قف كي قوي قال نفسي والوقيد شيخ الشيخ أنا أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر يوسف ركن الدين الفرغاني
المعروف بالأديب المختار ميل فرغانا الله يرحمه ومن بلاد ما وراء النهر أي الله نسبيا وحو وحكا قري فقه أدب سوغان تعربين قوي فربضان نقولها وحو دينتا شنبو قولي يافر يساقاشنكي ميل الله يرحمه مرغينان ويدنا بلاد ما وراء النهر كتال أيقول انت شيخ وحو أنشدني وحو يتري يقول الشيخ الإمام الأجل شيخي وينا إمامك أها الأستاذ معلمك أها ركن الإسلام واللقب المعروف لو يقاني بالأديب المختار الأديب سوغيها كي المختار لدورت إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أم كيف يختم عمره أو روحه يوم التوى متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي إن التواضع من خصال المتقي تلمامها قفك إلهي كبقرية أي كبدية والتقي ننكي على كبقرية يرتقي وفنانيا إلى المعالي درجوين كسره وحو كفنانيا يكفوليا به تواضع يسلو لك ومن العجائب اللياب كوحا كمدا عجب من قف نفتي سلا دعسل ونفتي سأبوغي هو إساقوا جاهل عجب من قف إنه نفتي سلا هو إساقوا جاهل كا في حاله ديسا أي جاهل كي أهو السعيد ما ميد قولي سنة أم الشقي بسوى ميد قول دحي سنة ما وقرنا إياه أم كيف أما وحو جاهل كي هايبا سيديبا يختمو لو ختميا عمره إيسا سيديبا لو ختميا ما خاتمو ونكسن مسا خاتمو أو روحه يوم التوى أو روحه أما وحو جاهل كي إيسا لو ختميا روح ديسا يوم التوى معلنت هلاك متسفل أهو إساقو روح داسي متسفل ما مدع دعيا وفي أسفل سافلين شحيمة قنت هذا كل دعيا أو مرتقي أو هو بسر روح داسي مرتقي ومد فنانا أو فوليا في أعلى عليين شنوين كفكتود والكبرياء أولي إسلويني دي لربنا ربي أصبناتي صفة صفوية صفة أصلا مخصوصة لقارية به ربي لقارية فتجنبها وهو كفو واتقي إلهي نكبر وحولي شيخاسي إن التواضع وحلو يقان التواضع إسلو اللقة يضدك إن أنا تكسن تاقي اسكسر ريسيني من خصال المتقي وحكم دي هاي تلمامها قفك إلهي كعب صنع قف إلهي كعب صنع ونفتي سيقانا مسن تاغو نفتي سنو مبوغو نفتي سنو ما عجبسو واي اسغا نفتي سو او غرني رحم الله امرا عرف قدر نفسه الهي ونحرسه قف نفتيسا قدر كده غرت واكا رسولك يقول صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا رفعه الله حديث بي كجرت حديث كو ديرا ما نقصت صدقة من مال قط وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد إلا رفعه الله صدقة وحبك مرد من حوله ولي جدا وحبك مرد معناه حولها هاجي وحي كبر كوبيا صدقة عفس عدل عفينا إلى هاي شرف مو يعني وحكى لقف مكرني هذا القف يسكع في ذلك السوق وظلمه هذا يقوم باشرف الراعي صو تواضعنا يسلو لك يسلو لجينا قف قصة يسلو لجيب الرسول إلهي سبحانه وتعالى قرب وقابل ومن العجائب وبه التقي إلى المعالي يرتقي وبدأ حديث كرسول قف كدوري درجة سرين وقالوا هيسلو لجيب وحال الله يابا يقول الشيخ والله يابا كم بدا قف حالة ديسة شاهل بكع
sida xaaladiisu ay ku dambayn doonto ma garanayo haddana naftiisii uu bogay oo uu isla weyn kullay waad dhimanaysaa waad geeriyoonaysaa miyaad guulaysan doontaa oo jannaad geli mise waad guul daraysan doontaa oo naar baad geli calaamad su'aal baa saar ma kala garanayo haddana cidnaba ma arki karaba wuu isla weyn yahay fuquu taagaya wuu isla sarreeyaa wakaa xaaladiisina jaahil buu kay waxaanu garanayn sida cimrigiisu uu ku dhammaan doono ma khaatumo wanaagsan uu ku dhiman doonaa mise uu khaatumo xumaysan doonaa ruuxdiisu halkay tegi doontaa maalinta adduunyadan la halaagayo ee shadaafaha loo laabayo mutasafilun aw murtaqi ahuwa ruuxdaasi mutasafilun naazilun fii asfali saafiliin ma naarta halka ugu hoosaysa ayaa lagu aaburi doonaa aw murtaqi ay saacidun ilaa aclaa ciliyiin mise jannada figteeda iyo halka ugu sarraysu geli doona ma kala garanayo haddana waa kaa isla weyn waalkibriyaau lirabbina sifatun bihi maqsuusatun fatajannabha wataqi haddaba ogow dadow isla weyni iyo isla sarrayn tilmaan innagu aynu leenahay maaha waa tilmaan ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ka fogo oo ka dheerow ilaahayna ka boqo ilaahay u toobadkeen oo ilaahay ka cabso haddii kibir kugu jiro rasuulkeennu wuxuu ka gaadhsiiyey sala allahu calayhi wasalam dhibic in la eg xabad ciida in la egoo kibiri qof qalbigiisa uu ku jiraa janno ma gelin intaa in la egoo kibira haddii qalbigaaga uu ku jiro oo naftaada uu ku jiro janno qofkaasi ma gelin ina tawaaducu isdhuldhigu min khisaali lmuttaqi qofka ilaahay ka baqanaya tilmaamihiisa ayuu ka mid yahay wayartaqi bihidaa waxaa lagu tacallujinaya yartaqidaa dambe wayartaqi wuu fananaya maya wattaqiyu dhe mubtadayso wattaqiyu kii ilaahay ka baqanaya yartaqi wuu fananaya ila almaraatibi alcaaliyati darajooyinka sare ayuu fananaya bihi bisababi taqwaa alla ka baqaa sababtiisa maya bihi dhe bisababi tawaaduca sababtiisa ayuu ku fananaya uu ku fuulaya darajooyinka sare wa min alcajaa'ibi waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah waa khabar muqadama cujbu man mubtadiyo mu'akhara qof naftiisa la yaaban oo la dhacsan huwa qofkaasiba jaahilun haddana jaahil ka ah fii xaalihi xaaladiisa ahuwa isagu asaciidu ma mid guulaysanayaa aakhira ma oga am ishaqii am huwa mise isagu ashaqii waa mid guul darraysanaya aakhira ma oga am kayfa ma oga sideebaa yukhtamu loogu khatimi doonaa cumruhu cumrigiisa ayukhtamu cala aliimaan am yukhtamu cala alkufri ma waxaa loogu khatimi doonaa iimaan mise gaalnimaa loogu khatimi doonaa ma garanayo aw ruuxuhu amba ruuxdiisa sideebaa loogu khatimi doonaa ma garanayo yowma tawaa yowma alhalaaki maalinta halaagga waa maalinta qofku uu geeriyoonayo qof kasta qiyaamihiisu laba qiyaamaa jira qiyaamaha weyn ee noolaha oo dhan laysu keenayo iyo qiyaamo kaa ka soo horreeya oo hordhaca qiyaamaha hordhici waxa weyn geerida man maata faqad qaamat qiyaamatu qofku hadduu dhinto qiyaamihiisi baa kacaysan qiyaamihiisi gaarkaa u kac markaa yowma tawaa maalinta halaagga sida naftiisu ay ku gabagaboon doonto war uma hayo ma guul bay ugu dhammaan mise guuldarray ugu dhammaan mutasafilun ahuwa khabarun limubtada'in maxduuf ahuwa ruuxdiisu mutasafilun ma mid dhaadhacaysa fii asfali saafiliin naarta halka ugu hoosaysa ma mid ku dhaadhacaysa ku hoobanaysa aw murtaqi aw huwa mise ruuxdiisu murtaqi waa mid fananaysa oo fuulaysa ilaa aclaa ciliyiin jannada halka ugu sarraysa walkibriyaau isla weynidii alkaa'inu lirabbina rabbigeen u sugnaatay waa sifo koowaadoo mubtadahaasi uu leeyahay sifatun waa kaa khabarka sifatun kibriyaagaasi sifo weeyaan sifadaasoo makhsuusatunna sifadaa laga sii sifaynaya sifadaasoo makhsuusatun la gaar yeelay bihi ilaahay lagu gaar yeelay fatajannab ka fogow hooy ka fogow haa
kibriyaaga ka fogow sifadaa ka fogow ilaahay leey wattaqi ilaahayna ka baq nin ilaahay subxaana wa tacaala kooshiisii isagu iska laalaadiyey oo waxa weeyaan isku koobay oo kibray dee waa nin kadeedan kadabkiina wuu go'ay kabtiina ma yeelan haddaad ilaahay tilmaantiisii ku qabsato kob cagaaran ka soo durdurinaysa qaala abu xaniifata wuxuu yihi raximahu llahu liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi cadimuu camaa'imakum wawasicuu akmaamakum cadimuu weyneeya camaa'imakum cumaamadihiinna weyneeya wawasicuu weyneeya oo waasiciya akmaamakum fiidiina wainamaa qaala daalika arrinkaa wuxuu u yidhi lianlaa yustakhafa si aan loo fudaytanin bilcilmi cilmiga iyo wa ahlihi dadkiisa si aan loo fudaytanin abu xaniifa oo xertiisii la dardaarmaya waa imaamkii weynaa afarta madhab ninkii ugu da'da weynaa weeyaan ayaa wuxuu ku yidhi waar cumaamado waaweyn xidha fiiddiinnana weynee fiiddu waxa weeyaan halkan aynu gacanta ka gelino khamiiska amba shaarka halkaa gacanta laga geliyo halkaa wey adigu malaha curfi berigaa jiray buu ahaay yacni maryo qurux badan xidha oo maryihii culammada xidha qofka ardayga khamiis inuu xidho oo cumaamad xidho oo madaxiisa xataa inuu qaawanaado waa laga fiicay koofiyad waa inuu qaato cumaamadii qaato oo waa kaas adiga iyo qofkii ciyaal iskuulka haddii laydi kala garan waayo oo maaragta jiimis kugu dhejsan aad soo xidhato kana yidhahdaan hooya iga bixi qofkuna marka uu salaadii sujuudaba cawradiisii ay dadka sawirayso haddaad kaa xidhato adigoo kitaab sita dee waa khatar weyn marka qofku inuu khamiis soo xidho koofiyaddii ku daro cumaamadii qaato haybaddii cilmiga ilaaliyo si aan dee laguu moodin qof aan cilmi shuqul ku lahayn oo kaas wuu sii dhammaynayaaba sheekhe wuxu uhi wainamaa qaala cadimuu weyneeya camaa'imakum cimaamadihiinna cimaamado waaweyn duubta wawasicuu waasiciya oo iyadana weyneeya akmaamakum fiidiinna wainamaa qaala daalika arrinkaa wuxuu u yidhi lianlaa yustakhafa si aan loo quursanin bilcilmi cilmiga iyo wa ahlihi dadkiisa wayanbaqii waxa u habboon lidaalibilcilmi qofka cilmiga dalbaya an yuxasila inuu helo kitaabal wasiyati kitaabkii dardaaranka allatii wasiyadaasoo katabaha uu qoray abu xaniifata liyuusufa bni khaalidin assamtiyi ninkaasuu u qoray cinda rujuuci markuu ku noqonayey ilaa ahlihi dadkiisa markuu ku noqonayay wayanbaqii waxa u habboon lidaalibilcilmi qofka cilmiga dalbaya an yuxasila inuu xasiliyu gacanta ku dhigo kitaabal wasiyati kitaabkii dardaaranka allatii wasiyadaasoo katabaha uu qoray abu xaniifata liyuusufa bni khaalidin assamtiyi uu qoray yuusuf ibnu khaalid assamti waa nin ardaydiisa ka mid ah dahabi wuxuu leeyay fi taarikh alislaam ninkani wuxuu ahaa nin laazimay abu xaniifa ilaa uu noqday imaam min nujabaa'i asxaabihi wuxuu dhintay 189kii taarikhda hijrigu markay marisay yuusuf ibnu khaalid ibnu cumayr assamti baa la odhan jiray samtigan loo nisbaynayaan reer ma ahee waxaa la yidhahdaa samti shakliga iyo qaabka quruxda badan haybadda leh waxaa la yidhahdaa alhay-atu waalhayba amba hay-atu ahli alkhayr cid kastoo wanaagsan qaabkeeda iyo quruxdeeda iyo tilmaanteeda ayaa la yidhahdaa waana sida ay tahay sheekhani ardaygaasi markuu laazimay abu xaniifa ardaygaasi markuu laazimay ee ay kala tegayeen ee ardaygaasi reerahoodii uu qabanayay ayuu dardaaran u qoray marka dardaarankaa waa la heli karaa wuu leey wuu daabacan yahay ha la raadsado dee dardaaranada culimmadu qoreen way badan yihiin dardaaranada culimmada ha la raadsado yajiduhu waa helayaa buu yihi dardaaranka man yadlubuhu ninka daydaya kaannamaa in su-aal la weydiiyey isti'naaf bayaani baa la yidhahda markuu inoo soo sheegay dardaarankii abu xaniifa uu qoray yuusuf ibnu khaalid assamti ayaa waxaa dhici karta qofku inuu isweydiiyo u yidhaahdo niyo dardaarankaa sheekhu inagu boorriyey uu yidhi ha la helo xaggee laga heli karaa markaasaa waxa uu yidhi isagoo ka jawaabaya su-aasha caqliga iyo cindiga aad iska weydiisay yajidhu waxaa helaya man yadlubuhu qofka daydaya ee raadiya man dalaba shay-an wajada qofka shay raadiya ee ku dadaala aakhirka u helay wa kaana ustaaduna wuxuu ahaa mucallimkaygii ashaykhulimaamu sheekhii imaamkaa burhaanula'ima cali ibnu abi bakrin waa sheekheenu soo marnay saaxibulhidaaya qadasa allaahu ruuxahu ilaahay ha dahiro
وهوناجي الروح ديس عليه العزيز قدس الله روحه هنصفين العزيزة روح دي العزيزة لما أرني وصفه إلهي عليه العزيز أمرني وحي فريشة خاصة بكتابته دردارا كان أبو حنيفة إن أنقرته عند الرجوع مركان كنا قلنا إلى بلدي وضنكي أنا الشيخ يبا فريقولي دردارا كي أبو حنيفة وقرأ أرديسة إن أنسي قرته مركان وضنكي قبلي وكتبته وأنا قريول ولا بدو حلقة مرمانة للمدرسي قفك علم قدقية والمفتي يكدتك وفتوانية وأقول لك مرمان إنه كتاب كهل ولا بد ولا مرمان كتاب كاسي للمدرس وحول لك مرمان وياه كدتك وحدقية والمفتي يكفتوانية في معاملة الناس تدك معاملة كفتوانية منه من ذلك الكتاب ولا مرمان ولا بد حلقة مرمان للمدرس معلم كوحول لك مرمان والمفتي يكفتوانية في معاملة الناس تدك سيد الله رقميه تدك أخلاق دودة إيو دين تودة ككفتوانة إيو حول لك مرمانا إيو معلم كبا منه من ذلك الكتاب كتاب كائن هلو والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا